Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada ku xidhan kinaalka hoyga bulshada kusoo dhowaada mowduuceena maanta haddiid ku cusub tahay kinaalka fadlan subscribe noo saar mowduucana haddaad ka heshay like noogu dhufo oo saaxiibadaada kale sii gaadhsii waxaana ku leenahay waad mahadsan tahay kuuna macna fadlan haddii aad channelkeenna hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan channelka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا maanta waxaan idinla wadaagaynaa laba qof oo saameyn ku lahaa bulshada ay ku dhex noolaayeen mid waxa uu ahaa youtuber midka kalena waxay ahayd fanaanad diinta islaamka ayayna qaateen ugu horeyn magaciisa waxaa la yidhaahdaa daa'uud kim waxaa u dhashay waddanka kuuriya waana youtuber haddaan si kale u dhigno waa wiil dhallinyara ay ku xiran yihiin in ka badan 1 milyan oo qof waxa uuna saameyn ku leeyahay magaalada uu ku nool yahay dhowr bilood ka hor ayuu qaatay diinta islaamka isagoo una soo geliyay youtube-kiisa muuqaalo kaga hadlayo sidoo kusoo galay diinta islaamka sidoo kalena waxa uu dadka u sheegaa macaanka diinta islaamka isagoo hadda bulshada uu ku xidhani maalinba maalinta ka dambeysa ay diinta islaamka qaadanayaan waa saaxiib ay ku xidhan yihiin kinaalkiisa ku dhowaad 1 milyan oo qof haddaba isaga ayaa kinaalkiisa ka shaqeeya kinaalkiisa waxa uu ka shaqeeyaa mowduucyo badan gaar ahaan faafinta diinta islaamka oo hadda uu xooga u weyn saaro waxaana la dhahaa magaciisa daa'uud kim waxa uuna u dhashay waddanka kuuriya sidoo kalena dad badan oo kuuriyaan ayaa soo islaamay bilihii u dambeeyey maadaama youtube-kiisa ay ku xidhan yihiin ku dhowaad 1 milyan qodobka labaad ee mowduuceena haweenay saameyn ku lahayd bulshadii ay ku dhex noolayd oo iyaduna diinta islaam ka qaadatay waxaa baraha bulshada qabsaday soo islaamidda fanaanada caanka ahayd ee Sarah Connor oo ahayd fanaanad caan ku ahayd waxyaabaha foosha xun sida jirkeedu ay ku sawirto waxyaabo xun balse waxay ka mid tahay hadda fanaaninta Allah subxaanahu wa tacaala soo hadeeyay fanaanadan ayaa mar ay ka hadlaysay waxyaabaha ku kalifay inay qaadato diinta islaamka waxay tiri waxaa aad ii soo jiitay dhaqanka wanaagsan ee diinta islaamka oo qalbigayga bedelay waana ku faraxsanahay inaan ahay hadda qof muslim ah diinta islaamku waa nasteexo walba aan muslim ahayna waan u rajaynayaa inuu maruun Allah toobadda waafajiyo intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa mowduuceenu aan kaga hadlanay daa'uud oo kuuriyaan ah iyo sidoo kale fanaanada caanka ahayd ee Connor oo iyaduna islaamtay ku kulmi doono mowduuca la mid ah waa walaalkiin Cabduuli oo idin fi amaanillah